bal aan isla fiirino cashirkan aan qaadanayno oo ah waxaan miisaal ahaan u soo qaadanaynaa jadwalka isku dhufashada. hadafkan kalena waa maxay? waxaan rabnaa in aan halkan ku barano qaabka aan mucaadalo u samayn karo. mucaadaladaas oo ah in marka lagu dhufanayo kowda qaybta column-kan kowdan ay dhaqdhaqaaqin oo halkeeda ay ku sugnaato, halka marka labadana lagu dhufanayo kowdan column-ka uu marna column-ku uu sugnaado marna rooga uunan dhaqdhaqaaqin. okay, bal sida caadiga ahi aan samayno. tusaalahaan oo kale kow lagu dhuftay kow macnaha wuxuu ku siinayaa inuu kow yahay. haddii aan dhaho hoos iigu wad, waxaa ii soo baxayso in ay halaabayso. okay, haddii aan dhaho hoosna ii jiid, waxaa ii soo baxayso in ay khaldamayso. okay, lianna sababtu waa maxay? sababtu waxa weeyaan tusaale ahaan oo kale haddaan meeshan imaano. okay, tan waxa weeyaan kow oo lagu dhuftay kow. okay, qaybta labada markaan imaano waan ku dhufanay fiiri, maxaa soo baxay? waxaa soo baxayso kow oo lagu dhuftay labo. okay, macnaha waxay ka dhigan tahay kowdan ayaa la rabay inay noqoto laba lagu dhuftay kow. kowdan waxaa la rabay halkeeda inay ku sugnaato, keliya ay dhaqdhaqaaqdo qaybta column-ka inuu dhaqdhaqaaqo. okay, bal aan fiirino qaybtan. waxaa weeyaan 24 lagu dhuftay 5, waxaanan ka rabnay kow lagu dhuftay 5 ayaan ka rabnay. okay, sifa aan sidaa u samayno maxaa xal ah? waxaa xal ah sidan soo socota yaxla. waxaan leenahay okay equal kow. okay, kowdan maxaan rabaa? waxaan rabaa inaynan dhaqdhaqaaqin markaan hoos u jiido. hoos markaan u jiido kowga oo rowga inuunan dhaqdhaqaaqin ayaan rabaa. rowgan inuunan dhaqdhaqaaqin ayaan rabaa. okay, sifa una u dhaqaaqin maxaan samaynaya? waxaad fiirisaa keyboardkaaga meesha ay ku qoran tahay F4 oo numberka afraad ka korayso. okay, waxaad ku dhufataa F4ka laba mar taabo. okay, laba mar markaad taabato waxaa kuu soo baxayo in calaamadda dollarka ay u dhaxayso sida iyo tuuga. okay, oo lagu dhuftay qaybtan aan u imaana marka oo lagu dhuftay wankan maxaan rabaa? waxaan rabaa column-kan hadhow markaan jiido inuunan isagana dhaqdhaqaaqin markii aan u jiido dhinacan markaan u jiido. okay, marka waxaan samaynayaa ayadana 4 mar markaan rabo column in aan tathbiitiyo 3 mar ayaan F4 ka taabanaya. waxaan leeyahay 1 2 3. okay, kadibna waxaan leeyahay enter. now aan jiido qaybtan hoosa imaanaya 2 maraan click ku samaynaya si uu iigu buuxiyo qaybtan. okay, kow markaan hadda ku dhufto fiiri, markaan ku dhufto wuxuu leeyahay kow oo lagu dhuftay 12 waana sidaan rabay. okay, marka aan sidii kale hal mar dhigdhag aan ka siiyo ama aan jiido. okay, waxa ii soo baxayso in mucaadaladii ay ii saxmatay. tusaale ahaan oo kale tii ugu dambeysay 12 oo lagu dhuftay 12, laanno 12kan waxaan niri markaad meeshan marayso tathbiiti ayada ku tathbiiti, kadibna tanna halkeeda ayada ku tathbiiti. macnaha barashada tathbiitinta in aad hal rowga ama column-ka aad meeshiisa ku sugto waxa weeyaan waxay ku faa'iideyn doontaa cashirada soo socdo ayay muhiim u tahay. marka misaalkan waxaan ugu talagalay in aan ku baranno qaabka column iyo row looga dhigo kuwa aanan dhaqdhaqaaqaynin marka aad rabto inaynan saamaynin isbedbedelka ama mucaadalada aad sii koobi karaynayso.